waxaan soo booqannay Aniso Aadan Xasan. Aniso waxay ka mid ahayd haweenkii aan u tababarnay arrimo badan oo la xiriira nafaqada. maanta waxaan jeclaysanaa marka inaan follow up ku samayno, marka waxaan nasiib u yeelanay inaan Aniso la kulno. waxaana la socda telefishinka Jubbaland oo aan jecelnahay inuu wareysto tababarkaasi waxay ka faa'iiday Anisa iyo sidoo kaleeto sida ay macnaha wixii tababarka loo qaatay ay u isticmaashay isla markaana ay ugu filisay qoys ahaan. marka laga hadlayo cuntada iyo noocyadeeda kala duwan iyo mid walba faa'iidada uu leeyahay iyo macnaha duruustii la siiyay siday markaas ay u dabaqday ama ay u samaysay. marka insha Allah taala maanta telefishinka Jubbaland ayaa wareysan doona gabadhan Anisa, waxaana laga wareysan doonaa arrimihii tababaradii aan u sameynay, capacity building aan sameynay iyo waxay ka faa'iideysatay iyo sida ay qoys ahaan ay u dabaqeen ama u isticmaaleen aqoontaas ay ka soo barteen tababaradaas aan bixinay haddaan nahay Scale Up Nutrition ama hay'adda kor u qaadida nafaqada. bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa Aniso Aadan Xasan, waxaan ka mid ahay haweenka degmada Kismaayo ay hay'adda san u qabatay kor u qaadista nafaqada. waxaan ka faa'iiday tababarka inay siisay hay'adda san inaan qoyska siino cunno nafaqo leh oo kala duwan. waxaan ka baranay cunnooyinka borotiinka leh sida hilibka, ukunta iyo kalluunka. waxaa kaloo ka baranay khudaarta cagaaran iyo fruitka kaasoo leh minerals iyo vitamin. caanaha kuwaasoo laga helo borotiin, calcium iyo phosphorus kuwaasoo dhisa jirka iyo lafaha. waxaan kaloo baranay muhiimadda ay leedahay cunnada laga helo tamarta. waxaa ka mid ah galleyda iyo masagada kuwaasoo laga sameeyo soorta iyo muufada. maanta oo Jimco ah waxaan soo booqannay Xabiiba Cabdulle Gaabow. maamadaas waxay ka mid ahayd haweenkii hay'adda Scale Up Nutrition kor u qaadista nafaqada hay'adda la yiraahdo aan tababarka u sameynay oo aan ku tababarnay toobabyo badan oo ka mid ah nutritionka. maanta annagoo arrintaa daba soconna ayaan nimid gurigeeda, marka waxaan rabnaa inaan ogaano waxa maamadu ay ka faa'iiday tababarkii aan siinay, siday u dhaqangelisay tababarkaas isla markaana saameynta uu ku yeeshay nolosheeda iyo nolosha qoyskeeda. marka insha Allah taala ayadaan hadda la wareysan doonaa. waxay la socdaa telefishinka Jubbaland TV oo maama Xabiiba Cabdulle Gaabow wareysi la yeelan doona si loo ogaado tababarkii aan sameynay iyo waxa ay ka faa'iiday iyo waxa ku soo kordhay nolosheeda inaan ogaano. marka waxaan wareejinayaa telefishinka Jubbaland oo wareysigiisa bilaaban doona. wax badan ka faa'iidnay, wax badan aqoon aan helaan baranay. training-ka wuxuu ku saabsanaa waxyaabaha darada iyo cuntooyinka dalka ka soo baxo in looga bixi karo nafaqo darada sida galleyda oo kale, ukunta dalka, hilibka cad, digaageena laga Soomaalida dhaqato, sidoo kale cuntada si amuufo ka samaysano, soor ka samaysano, cuntada digirta oo kale, cuntada qolofta leh, cuntooyin badan aan barno. wax badan oo aqoonin baan ka faa'iidnay. maasha Allah training-ka macallimiinta noo qabtay mahadsan hay'adda soo maalgelisay oo in la qabto ka dambeysay waa ku mahadsan tahay. wax badan aan ka faa'iidnay training-kaas. isma lahayn cuntooyinka qolofta leh aan nafaqo darada ilmaha ugu bixi karaa isma lahayn. hadda san training ku qaadanay wax badan aan qoyska iyo guriga ka bedelnay. saad idinkoona soo booqatay ma aragteen anagoo isticmaalayna cuntada dalka, anagoo isticmaalayna lahay awal bariiska iyo baastada waxaa muhiimad siin jirnay in ay meeshaas waxba naga jirin. cuntooyinka tamarta la helo oo vitaminiska, mineralka, shanta cunto oo loo baahan yahay bini'aadanka. wax badanaa maasha Allah ka faa'iidnay oon ka baranay wayna mahadsan yahay. waxaan dhihi lahaa ku dhiirigelin lahaa in badan training-kan oo kale loo qabto hooyooyinkan oo kale ah si iyagana wax badan ugu faa'iidaystaan, guryahana ila tagaan, dariskooda ku wacyigeliyaan, ay cuntooyinkana hoos sare loogu qaado. maanta waxaan u nimid in annagoo dabagal ku sameynaynaa dadkii aan hore u tababarnay. maanta waxaan u nimid maama Zainab. waxaan rabnaa tababarka kadib waxyaabaha yani aqoonta ay soo faa'iideysatay
iyo sidii qoyska ay ugu dhaqangelisay in macnaha wixii ay soo baratay yani ay fuliso oo ku saabsan yani nafaqada iyo cuntooyinka kala duwan iyo cuntada dhammaystiran sidii ay u hirgelin lahaayeen. Marka annagoo arrintaa daba soconna ayaan maanta guriga waxaa nimid maama Zaynab waxaanan jecelnahay inaan ogaano waxaa kaloo nala socda telefishinka Jubbaland oo aan jecelnahay markaasi inuu waraysi ka duubo maama Zaynab insha allahu tacaala. marka hadafkeena maanta arrintaas u ahaa insha allahu tacaala arrintaas ayaana guda gelaynaa annagoo telefishinka Jubbaland markaasi uu waraysi la samayn doono maama Zaynab. kunka maalmood ee cunugeeda uur qaadistiisa ilaa iyo 2 sano uu ka gaara naaska nuujisay oo cuntada isku dheelitiran iyada nafteeda ugu dadaashay iyo hooyada aan kunkaas maalmood cunugeeda ka fikirin waxyaabaha isbedelka oo ku jiro ayaan fiirinaa idinka tusaale aan rabaa. hooyada aan kunkaas maalmood iyadana aan isu dadaalin cunugaasi caloosha ku boormaayo oo soo dhalanayo oo ku caayo oo soo koraayo aan u dadaal waxay ugu duwan tahay ilmaha inta badan nafaqo darrada u soo dhaca iyo hooyada inta badan nafaqo darrada u soo dhacda oo anemia ku dhaca oo dhiigga lagu shubo waxaa sabab u ah in ay helin cuntadaas macdinta leh oo tamarta leh oo carbohydrate-ka oo leh oo iskaashaday ay helin oo carbohydrate-ka laga isticmaashay oo maaragtay nafteeda ay u dadaalan ayaa keeni karta in ay hooyadana u soo dhacdo cunugana uu koris la'aan uu ku dhaca ama se nafaqo darro iyo nutrition non nutrition oo noqdo ayaa sababaysaa. hooyada cunugeeda kunkaas maalmood ku dadaashayna waxay soo saaraysaa ubad barbaaray oo xag walba ka dhisan, xagga nafaqadana ka dhisan, xagga tamartana ka dhisan oo wanaagsan ay soo saaraysaa ayadana iyadoo wanaagsan oo ay isla jirta oo hooyadaas waxay u baahan tahay lahayn ayay dhalaysaa kadibna cunug barbaaray oo isla siman oo isla koray ayay korinaysaa. sidaas ay ku kala duwan yihiin. marka in cuntadii nafta looga dadaalo oo qoyska looga dadaalo oo ilmihii koritaankooda lagu fikiro oo hooyada uurka leh loo dadaalo intaas ayaa macnaha dadka ogeysiin lahayn cuntadaas oo ah cuntada ka baxda dalkeena hooyo oo tacabkeeda lagu dadaalo. mar kale hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa ama se aanba aan faa'iiday oo aan training ka faa'iiday oo aan dhakhtarka waxna baray ka faa'iidnay in hooyada ay ku dadaasho kunkaas maalmood ay kala soo dhexbaxda 6 bilood oo muhiim u ah cunugeeda inay siiso naas nuujin barax tiran oo 6 bilood isku xiriirta oo aan biyo iyo caano iyo midba aan la siinaynin oo cunugaasna uu noqon karo cunug caafimaad qaba oo qiimihiisa ay sesho oo maaragtay si wanaagsan u koro oo aan malnutrition aan noqonin ayaan kula talin lahay anna aan faa'iiday oo aan ka faa'iiday training. marka sidaas daraadeed hooyooyinka waxaan u sheegi lahay inay cunugii ay ku dadaalaan 6 bilood oo ugu horeysa maalintuu dhasho saacadu dhasho 15 daqiiqo laga bilaabo ilaa 6 bilood oo ka dhamaystir intaas ayaan kula talin lahay anna aan ka faa'iiday.